بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول صلى الله عليه وسلم: رسولك وحجرم نعمتان لبا نعمهم مقبون ويكوكت سومان فيهما لوضع نعمهم كثير من الناس تدك انتو ضبطان يعني كما فايدستان محيهين تنكوات الصحة وعافماتكم برينا عافال قبل دونتو قرميسهم عاوي وعافمات قبتام وتكن كرتام وادوردين كرتام نبيغا كسالين كرتام waxaad rabtaa samayn kartaa laakiin bari inaad weesaysan karin weydo baa dhicin kartaa maantay waad caafimaad qabtaa adoo soconayo lugaynaya baad masaajidka timid ilaahay caafimaad buu ku siiyay takhtar iyo sariir ma jiifto ilaahay caafimaad buu ku siiyay ka faa'iidayso caafimaadkaaga xanuun baa imaan dooneen waxaa dhici kartaa indhahaaga in aragoodu daciifo oo aad kitaabka ilaahay ku akhrin karin weydo maanta indha qabtaayee akhrim tan labaadna walfiraagu waa firaaqada iyo jaaniska waxaa la rabaa waqtigaaga inaad ka faa'iidaysato cumrigaagu waa saacadaha iyo sikimada iyo ilbiliqsiyada ku dhaafaya ayaa cumrigaagiya marka cumrigu waa khasnad wax lagu rito marka cumrigaagu si uu u noqdo mid baraka leh waa inaad gelisaa wax wanaagsan waa inaad ka ilaalisaa wixii aan faa'iido lahayn oo waxba kaa soo galayn sida rasuulku xadiis kale uu ku yiri xusnul islaam almar'i tarkahu ma la ya'ni qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxa kamid ah inuu ka tago wixii aan faa'iido lahayn oo lagwiya oo cayaara inuu ka tago marka xadiiskan markaad eegto naftaada bal eeg xadiiskan marka aad eegto mucaamalaadkaaga iyo dhaqamadaada bal eeg wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.